kulankan oo lagu qabtay aqalka looga taliyo gobolkan Victoria waana halka uu fadhiyo wakiilka boqorada Britain ee gobolkan Victoria. xafladan oo ay soo xaadireen wasiirada gobolka uu hogaaminayo madaxa gobolka Victorian Premier iyo waliba madaxa booliiska gobolkan Victoria. waxaana la abaalmariyay dad aad u fara badan oo ka soo kala jeeday jaaliyado kala duwan. Mr. Hassan Yusuf. عاوة نسيب وناك وحاجة اليد الصومالية الله أبال مريي حسن يوسف أو تضوات جرأة دلنكيغو آد بو فرحسن هاي أود وين ويه وأنا كو فرحسن هاي إن دولة إيقارتو أود كاس 20 سنة كهور أي إهيد مركي ويمد دلكن أستراليا حسن يوسف waxaana abaalmarintan uu ku mutaystay dadaalkiisa jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolkan Victoria waxaana sida la sheegay uu ahaa shakhsigii isku keenay jaaliyada inay midoobaan mudane Xasan Yuusuf waxa uu ka mid yahay cuqaasha waxtarka ah ee ku nool state-kan la yiraahdo Victoria awardka uu mutaystay waxa lagu siiyay waxqabadkiisa haddii ay noqoto isku soo dhaweynta bulshada Soomaalida iyo bulshooyinka waddankan aynu ugu nimid sidoo kale waxa uu kaalin weyn ka qaatay mashruuca lagu doonayo in Soomaalidu ay ku iibsato markas weyn ee lagu tarbiyo ama wax lagu baro caruurta Soomaalida ee ku nool magaalada Melbourne lacag boqolaal kun dhan uu aruuriyay center ama xarun Soomaalidu ay rabto inay dhisato arrinta waxbarashada iyo qalin jabinta qaybta ugu wanaagsan uu ka qaataa had iyo jeer ma taqaana uu naga caawiyaa marka oday Xasan ama caaqil Xasan intaasi in ka badan uma taqaan runtii mutaystay isagoo dhanka kalena ah shakhsiga haya dhulka qabuuraha ah ee loo iibiyo Soomaalida hadii ay geeriyoodaan taas oo xitaa laga baaran degay halka lagu aasi lahaa arimahaas iyo kuwa kale oo badan awgeed ayaa waxaa loo codeeyay inuu caawa ka soo hormuuqdo boqolaal ajnabi iyo dadka u dhashay dalkan hortooda isagoo abaalmarintiisana uu ka gudoomay wakiilka boqorada Britain ee gobolka Victoria Melbourne magaalada aanu joogno waa magaalo dad badan oo kala duwan oo ku nool yahay oo dhaqan kala duwan leh oo diin kala duwan leh oo wax walba ku kala duwan laakiin waxay ku midaysan yihiin inay si reer magaalnimo ah ku wada noolaadaan annagu Soomaali ahaan waxaanu ka shaqaynaynaa intaas in aanu dadkaas oo kale noqono annagu dhexdeeyadu aanu noqono kadibna aanu dadkaas la noolaano si aan ula qabsano mujtamacaanu ku noolahay. The Somali community is a very, very important part of Victoria, so we'll undertake to keep working very, very hard with the community, and together we'll build a safer Victoria. aad baan ugu faraxsanahay inuu qaato awardkaas oo uu ku qaato community-ga Soomaalida aad baan ugu faraxsanahay. Gonzalo Lopez waa madaxa laanta afka Soomaaliga idaacada SBS iyo 13 luuqadood oo kale waxaana uu ka mid yahay dadka abaalmarinta la gudoonsiiyay caawa ka waran dareenkaaga. I'm delighted to be receiving this award on behalf of the 74 languages that we broadcast at SBS. I think it's a valuable, wonderful recognition for the work that my colleagues at SBS Radio produce on a weekly basis, including the Somali language program at SBS with Hassan, with Bafo as well on board, creating great content, addressing the community needs as well, and giving news and information for these target audiences. It's a wonderful recognition, and it's part of what we do every day, and it feels good. sidoo kale idaacada Universal TV waxa dhawaan ay ka bixi doontaa idaacada SBS qaybteeda telefishinka ee luuqadaha taasina waa guul weyn ee u soo hoyatay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool Australia. Gonzalo sidoo waragtaa marka Universal TV in laga daawan karo SBS TV. Having universal services with SBS will complement our services great time. I think the community needs the services. The community is a very avid community to receive information from overseas, and I think SBS can do that with the services, linking and associating with Universal simply because it's a great service. It's a balanced, independent and neutral information that we provide, and I believe that Universal will complement our services, focusing in Australian audiences, but with these television and video services across our platforms, including website. abaalmarintan la gudoonsiiyay Xasan Yuusuf ayaa waxa ay tahay abaalmarinta ugu qaalisan ee laga bixiyo dalkan Australia
taas oo uu gacanta u geliyey wakiilka u qaabilsan boqortooyada Britain ee dalkan Australia gaar ahaan gobolkan Victoria iyadoo xasan abaalmarintan la sheegay inuu ku mutaystay howlaha jaaliyadda Soomaaliyeed oo uu ka hayo dalkan Australia gaar ahaan gobolkan Victoria Brian Umar Baafe wararka Universal xarunta gobolka Victoria magaalada Melbourne dalka Australia